كبلو step by step وكريا ونكون هرجليا business بلان طبعا so waxay lacag ka samaysay nothing keliya ahayd warahmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow Amaar podcast barnaamijkeena shaxda guusha maanta barnaamijkeena waxa inoo martay ah ustaad Geela Bashiir waa asaasaha shirkadda Geela Bashiir Academy waa blogger wax ku qora article-kiisa website-kiisa sidoo kale waa youtuber dadka la soo wadaaga halka fursadaha ka banaan yihiin gaar ahaan suuqa online-ka iyo internet-ka sidoo qofku ka faa'iideysan kara iyo meesha wax uu ka baran karayo sidoo kale wuxuu leeyahay shirkad agency oo samaysa branding-ga iyo marketing-ga qof kasta oo businesskiisa ugu sameyn lahaa online-ka website ha noqoto ama ha noqoto logo-da sa loo design gareeyo mar walba wuxuu bulshada u soo bandhigaa adeegyada service-yada ka banaan ay u baahan yihiin dadku si caalamka ula jaan qaad lahaayeen sidoo kalena xogaha ugu muhiimka iyo qofku waxa uu bilaabi lahaa maanta barnaamijkeena waxaynu focus ka saari doonaa e-commerce-ga iyo qofku soo ugu faa'iideysan karayo iyo suuqa sida uu shaqeeyo iyo saad u bilaabi karayso iyo sidoo kale xogo kale oo muhiim ah akhriska buugaagta iyo talooyinka 2023 aad u baahan tahay inaad ku bilowdo iyo qaabkaad u gali lahayd iyo sidaad u sameyn lahayd caado qurux badan ustaad Geela Bashiir aad baad ugu maasantahay waqtigaaga soo dhawow ustaad ku soo dhawow ustaad marka koobaad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجبك سلام يا أستاذي وأنا محسن تاعي سيدا قروحة بدن أو بلاتفورم كاجا بودكاستي يسوق كلا يوتيوب أنت لقيت دعواني سو عاد يوم برتقاعدي سيدا كلا حصلا يعني لما دقيت ياشا أما سيدا كلا دعوة ياشا دقيتين دول أما دعوان دعوة الفيديو جا أجب بحوي يعني وما سنتي لمات هذا من الأستاذ موضوع إنه ما أنت وحويان صدوق في جناح بلابي كريا أما إنترنت كوجو سامين كريا أما ganacsi physical product lagu sameyn karaya maadaama ay noolnahay fursad dadka bini'aadanka soo waqti informationka uu fududiyahay qofku si fudud ganacsi ugu bilaabi karayo waxaanu ka hadli doonaa sida e-commerce-ga ama physical ama wadanka dadkii joogo kale fursadaha ka banaan ay ku sameyn karayaan qofku qaabku u bilaabi karaa iyo tusaale ahaan aan soo sameynay ama aad soo sameysay oo adigu ganacsi u bilowday qofku hadduu ustaad uu maanta rabo inuu e-commerce sameeyo waa maxay e-commerce-ga suuqa u shaqeeya waa maxay weeyaan waa ganacsi sidee weeyaan run ahaantii waxa way saa sheegtay maanta maray ka fududahay ma jiro in internetka ama waxa way online-ka ganacsi laga sameeyo marka waxaan isku dayaa wax yar 2 daqiiqo 3 daqiiqo waqti siisaan aan ku sharaxo e-commerce wuxuu yahay aan definition ka bixiyay sidoo kalena aan ku sharaxo ilaa waxa way qaacida la isticmaalo oo loo mataqaan e-commerce blueprint ayadana halkan aan idin shaqeeyay definition-ka waxa muhiim marka aan self-ana what is e-commerce e-commerce is waxa weeye waa selling products or service on online using internet that's what we call e-commerce waa inaan product ama service aan ku dhex iibin online anagoo isticmaal internet haddii product ama service aad online ku isticmaashid aad ku dhex iibisid adoo isticmaal internet that's waxa weeye inta kaliya weeye e-commerce definition-kiisa guud intaas kugu filan iyada waxa laga soo gelay mataqaana waa electronic commerce way bariga hore dee dukaamo wax lagu dhex iibin jiray service kale laakiin hadda waa internet marka e-commerce waa loo bixiyay that's it waa e-commerce marka e-commerce marka bilaabaysid qaacida la maraa qaacida waxa loo yaqaanaa e-commerce blueprint ama waxa loo yaqaanaa waa processka e-commerce la raaxo weeye 5 qodob oo international weeye oo mataqaana la dejiyay shanta haddii aad raacday businesska e-commerce uu ku guuleysanaya qodobkaad marka wuxuu noqonayaa waxa weeye e-commerce laga rabo inaad barto waxa loo yaqaano number 1 waa audience weeye now you audience waa in aad baratid waxa weeye audience-yaaga maxaa ka baranaysaa audience waxa ka badan jaddarkooda ma gabdhaha ma wiilal baa maxay yihiin sidoo kale waxa ka baranaysaa age-kooda waxa weeye waxa baranaysaa mataqaanaa geographic waxa weeye arrimahaas waxa ka mas'aalo kale existing follower-kaaga baa isticmaalaysaa tusaale hadda Instagram gashid Instagram meesha follower dasi wuxuu xilmaalo insight-ka marka waxa qayb waxa jirta oo sii raacan audience marka waxa ogaanaysaa follower-kaaga meesha ay joogaan mataqaanaa waxay u kala baxaan waxay rabaan waxaas wax ku eegda halkaas marka isla kaas oo kale baa la maraa process marka audience-ka waa qodobka ugu horeeya marka hore aad ogaatid marka ogaatid audience-ka qodobka labaad oo laga rabo in aad ogaatid marka e-commerce business ama blueprint waxa weeye waa product weeye sidee mataqaanaa product faad u heli kadhaa waxa weeye product-gaaga problem ma xalinaysaa maxay product-gaaga uga duwanta computer-ka magaalada joogo maxay uga duwantaa marka waa inaad soo heshid saddex jawaab waa inaad ka jawaab waa inaad soo heli kadib product fiican waa inay fix gareyn kana problem marka taagan solution ay u noqon mataqaana problemka maxaa ani ku dooranayaa productiga marka akeentid innovation ma leedahay delivery-ga timing-ka packaging-ka haddii noqon lahayd waxa weeye customer service waxaas oo dhan ma leedahay si adiga customer badan ay ku sahlan marka maxaa marka audience-ga soo ogaatid at the same time product maalaga waxa kamid ah Alibaba waa e-commerce mataqaana website si wholesale baa runtii looga adeegtaa eBay baa laga adeegin karaa turkiga hadda la bilaabay dibay waxa weeye product badan waxa weeye laga soo gadan karaa ustaadka insha Allah gadaal nolosha keenay mar dhow turkiga waxa weeye ka yimaaday marka product-ga aad ogaatid
qodobka saddexaad asna waxa weeye muhiimka inaa waxa kamid ah waa traffic weeye which channels you must use traffic inaa heshid in order to get traffic channeladeeba u baahanta inaa isticmaashid marka qodobka waxa hoos geli kara waxa loo yaqaano digital marketing oo asna saddex u kala baxo social media marketing baa laga rabaa inaad sameyso waxa loo waa inaa instagramkii waxa weeye youtubekii tiktokii iyo mataqaanaa waxa weeye facebookii snapchatka isticmaali karaa social media waa inaa isticmaali karaa si aa u heshid traffic fiican dadka waxay rabaan mataqaanaa waana traffic customer waa inaad raadisaa waxa laga yaabaa followerkaaga inuu iska yaryahay laakiin marka business bilaaws weliba e-commerce ah you need waxa more traffic mataqaanaa u baahan tahay productiga ka adeegto marka trafficgana waa inaa waxa weeye aad raadin kartid qodobkan afraad marka wuxuu noqonayaa blueprintiga hoos yimaado waxa loo yaqaano waxa weeye funnels waa inaad leedahay funnelka waxaa la macnaya waa website weeye marka audience soo heshid aad productiga soo adeegatid waxa weeye trafficgii meeli aad ka helhayn aad diyaarsid sida youtube instagram aad diyaarsid waxaa u baahan tahay trafficga meel aad kusoo drive garaysid meel aad kusoo hagtid oo saleska order ka dhaco kaasa marka waxaa la funnel ama waxa loo yaqaano website waa in marka website uu ku dhisan yahay e-commerce ah paymentka garweyga uu saxan yahay mastercard visa paypal dhammaantood uu u dhammaystiran yahay waxay productiga ay ku jirto descriptionka productiga weliba waddanka haddii aad joogtid waxyaabaha la isticmaalo waafi baa la isticmaalaa ama sahl efc plus waa inuu ku dhammaystiran yahay funnelka marka wuxuu kaa caawinaya waxaas funnelka marka websiteka haddii aad aqoon sida loo sameeyo meelaha lagu sameeyo kala shirkadaha sameeyo kala waa inaad u tegi kartid ay kuu samayn karaan dabcan anigu shirkad baa laya mataqaan digital marketingka oo dadka web developer ah oo sida dhalinyarada u sameeyo iyo shirkadahaba waa nala soo xiriiri karaa keena ugu dambeeya marka wax way waa customer waa faa'iidadii qofku markuu websiteka soo aadayto order buu balaas garaynaya ama order buu kaa dalbanaya qofka hadduu order dalbado customer buu ku noqonaya customerka wuxuu la macnaya waa lacagtii waa faa'iidadii dollar bay la macno tahay marka shantaa qodob baa loo maraa marka rabtid inaad bilowdid ganacsi runtii e-commerce aad ustaad aad bay u qurux badan tahay sida kooban aad u sharaxday iyo sida aad u soo bandhigtay qofka istaabiyada u marayo sida audience-ga productiga waxaan rajeynayaa inaad qoranaysaan si aad uga faa'iidaysataan soo marayo shanta qodob ee ah inaad audience yeelato dadkii aad garanayso waayo qofkaad rabto productiga inaad haysato traffic inaad haysato blueprintiga iyo website-ka inaad haysato marka shanta markuu dhameeyey ustaad waxaan rabay togo adag oo ah audience-ga okay waa maxay sababuu qofku u rabaa audience maadaama maanta markaad ganacsi galayso qofku aad bay muhiim u tahay inaad fahmi karayso waayo dadka ka iibinayso sabab baad uga dhigtay number 1 ama sabab u tahay e-commerce number 1 sababta haddii aad ama aad u qaadan weydo product oo kale sabab bay u tahay inaad ogaato dadka aad rabto inaad productka ka iibiso waa su'aal aad u fiican aad u mahadsantahay runtii audience wuxuu u fiican yahay su'aal oo kale waxaan joogaa ka soo qaata Soomaaliya baan isku bees gareynayaa Soomaaliya jooga waxaan rabaa inaan mataqaana audience-ga ogaado audienceska ama dadka ku nool America iyo dadka ku nool Soomaaliya isku baahi ma noqon karaan isku waxna runtii waxa way ma reeb karaan waayo isku dhaqaale iyo isku environment ma su'aal oo kale hadda winter baa ku jirnaa Europe jaakadaha dhaxanta dharka dhan waa la bedelo culus baa laga dhigay surwaaladii waa dhar adag jaakadii waa dhar adag xilli qabow winter baa la geliyaa marka audience-ga Europe qofka inuu hadda dhar keeno oo business mataqaana oo balaa waa inuu dharka dhaxanta iyo jaakadii iyo kala keeno ka waran gaalka ay joogsan kale dharkii winterkii haddii aan ka waran aan keeno Soomaaliya taasi waxa weeye waa lack of information oo ah audience-kayga sababtoo kale technology casri baa rabaa in hadda sameeyo waxa la yaabaa technology-ga in Europe iyo America ay ku shaqeynayso laakiin Soomaaliya ay ku shaqeynayso sababtoo kale business mataqaana hadda loo yaqaan mataqaana metafasiga iyo mataqaana web3ga iyo mataqaana cryptocurrency ugu adeegto dukaamada haddii ka waran maqaaxi Soomaaliya aan for oo payment gateway-ga maqaaxi aan ka dhigo kaliya bitcoin iyo ethereum iyo cryptocurrency baa lagu bixin karaa maqaayadaha Europe iyo reer galbeedka waa aragtay paymentka methodka waxaa ka mid ah xataa bitcoin-kii iyo cryptihii inaad shaha ku cabi kadha cuntada ku xigta hoteelada qaar tigidha xataa waa lagu goostaa marka paymentigii Soomaaliya meeshii aan ka diyaarsan lahaa sahal efc plus sad iyo mastercard visa haddii kaliya aan ka dhigi kaliya ka waran waxa weeye bitcoin iyo cryptocurrency qof Soomaaliya ma isticmaalaa bitcoin iyo cryptocurrency access ma laha marka waxaan ka wadaa audience waa in awaatid dumar baa waxa mataqaana priority aad u keenaysa make up oo kalaarta in aad samaysid waa inaad waxa weeye dumarkii aad ogaataa da'dooda waxay yihiin marka audience geographically waddanka aad joogtid waxaan anfacaya priority-gaaga waa in aad barato dabeecadahooda waa in aad barato waxay rabaan waa in aad barato mataqaana age-kooda si mataqaana priority xula
advocate marka wax dhigi karaa inahaas waa kusoo koobi karaa sababta ugu fiican طب استاذ si fiican baad u sheegay sababta waa ta ugu muhiimsan waxaan kugu soo celinayay qofka haddii aanad garanayn wax qofka aad wax ka iibinayso soo waxaad inuu iibsanaya halkaad ku garan karaysaa macnaha lack of informationku muhiim waa ta koobaad inaad garan karayso waxaad iibinayso sababtaan wax ku saabsan inaad xogta ugu dambeysa haysato waxaa jira nin la yidhahdo Pascal Mergeschaft maxaa shirkad leh oo Jarmalka jooga oo milyaneer ah waxaa la weydiinayaa seed u samaysaa productkaaga oo iibisa marka uu ka sheekeynaya dadka uu ka iibiyo gabadha 33 jira single jaamacadda ka baxday macnaha wuxuu describe sameynaya exactly qofka uu rabo dhaxdeeda nooceega qaabka uu eg tahay sababta wuxuu garanaya nishkiisa audience-kiisu garanaya marka waxay u baahan tahay waad soo bandhigi karaysaa so this very way aad bay muhiim u tahay inaad garanayso qofkaad iimayso innaka oo kulli xagga dambe kaga hadli doona hadhow toole marka aynu productiga soo saarayso iyo sida aad ganacsi ahaanba u bilaabi karayso laakiin hadda waa systemkii uu shaqaynayay shantii step oo e-commerce uu shaqaynayay waxaa kaloo ustaad jeclala productiga tusaale ahaan oo kale qofkii inuu soo bandhigo raba muxuu ku dooranaya halkuu ka eegaya ma waxaa jira matalan wax trendi socdoo kale ma waxaa jira wax uu xiiseynayo soo maadaama e-commerce-gii aad adigu productigii lahayd uu qof kale leeyahay ood adigu sii iibinayso seed ku dooranaysaa productiga aad dooranaysaa amaad iibgeynayso productiga markaad dooranaysa ayadana waa run oo sidoo kale waa muhiim qofka inuu mataqaana market research waxa baa la sameeyaa waa in aad magaalada aad gashid productiga aad rabtid magaalada ma taalaa haddii ay taalo aad rabtid inaad keentid waa inaad wax ka bedeshaa haddii is-ooline markaa mataqaana waa blue ocean weeye waa business mataqaana monopoly oo mataqaana isu bedelayo keliya waa productiga keenayo marka productiga haddii magaalada yaallo kala tusaanka oo keelahana qabaa dabcan magaalo kasta Soomaaliya waxa ka furan oo keela ama dukaamo iyo store wax jira oo keela maxaa ani ku dooranaya mataqaana oo keelahaaga maadaama magaalada oo mataqaana meherada badan ama website badan oo keela aan ka heli karo jiraan business-kiina adiga aad ku cusub tahay brand ka horeeya jiraan already waxa customer-radiina kuwaas ay yaqaanaan ka adeegtaan adiga marka suuqii waa soo gashay see mataqaana product waa keentay maxaa marka something different ba u baahan something unique u baahan markaas kale waxa xoog la saara inaad samayso innovation waxay dhahaan in aad productigi isla product adoo keenaya inaad wax ka bedesho tusaale ku siinaya product mataqaana packaging inaad ka bedesho tusaale qofkii dukaanka hore markuu wax aan wax ka iibsado wax mataqaana bac yar buu igu ridi jiray mataqaana productigi wuu soo siin jiray laakiin adiga adoo same price gadayo same product haddana packaging baad qurxin kartaa oo waxaad ku ridi kartaa mataqaana package kartoon yar oo qurux badan shirkadda magacaaga ay ku qoran tahay qofka oo more comfortable ku dareemayo kooban wax qurux badan oo si customer-ka dhoni labada ka waa isku mid kan wuxuu ku duwanay kan package-kiisa baa qurux badan mara customer baan ku imaanay waxa kaloo ka fiirin karaa delivery-ga haddii aad leedahay mataqaana ani product meel way taalaa laakiin delivery-ga wadanka baa wax ka qaldan qofka ina gurigiisa ugu offer gareyn kadib dabcan ani qof guriga product uu keenayo dukaanka cusub baa ka dalbanaya ilaan kaas mataqaana awal waa ka doonay marka orderkayga soo dhaco way soo waceen libax soo doona productigaaga laakiin halkan waxay sax sameynayaan wax collection ma jiro annaga mataqaana gurigaaga kugu deliverayna waa ina feesh cusub baa la timid laakiin waa same product marka dukaankii iyo marketka adaa la wareegayo waxa wax ka bedeli kara timing-ka lagu sameynayo productiga oo kala marka la sameynayo wuxuu qaataa 3 weeks 2 weeks 4 weeks bil buu qaataa adiga laakiin maadaama dukaan cusub tahay something different ma miska oo keenta waxa la aniga week baa kugu sameynaya oo kala orderkaaga guriga baa kugu keenaya hadaan ku soo aadiya tan u dambeysay waxa weeye waa customer service kana wax ka bedeshay qofka markuu soo galo dukaankaaga dukaanka waxa yahay in qofku waxa weeye maadaama macaamiil badan haysto uu careless yahay uu suuqa kaliya baa haysto qofkii uu adeeg iska tago laakiin adiga waxa la inaad coffee u shubtid biyo qabow aad qofka aad mataqaana aad u shubtid aad la shakiisid more information aad ka siisid mataqaana productiga waxay uga duwan tahay marka productigaas waa markuu magaalada yaallo hadduu yaallo afarta qaab baa loo bedelaa customer fiicanna waa helsaa productiga wuxuu noqonayaa producti aan magaalada oolin oo problem fix garan karto aslada niyo waxa magaalada ma yaalaan waana loo baahan yahay maanta markii inaad soo adeegatid productiga aad keentid dadkana waxa weeye ka ibsa marka productiga ayadana businesska muhiim u tahay productiga waxa laga fiiriyaa kala mataqaana quality-ga productiga waana quality-ga aad iska fiirisay sample order baa la dalbadaa hadda calaamado kala inaad product aad ka bilowday basically waxa la sample order ay soo dir almost waxa lacag baa iska bixinaysa gurigaaga product bay kugu imaanaysaa waa fiirinaysaa productiga quality ma leeyahay product waxa laga fiiriyaa adiga saaxiibka productiga ma ka iibin lahayd walaalka ma ka iibin lahayd hooyada ma ka iibin lahayd adun iibsana productiga quality-geeda marka inta aad qanacsan dhalinyaro productiga waa sax weeye waa iibin karaa waa quality fiican waayo customers waxa ku noqonaya ambassador markuu 10 qof wax ka iibsadaan haddii product mataqaana aan quality lahayn ama shaqada wax yar uu qaban kadib iska halaabayo kale businesskaaga ma sii soconayo long lasting ma sameeyo marka productiga asxaabtada walaalaha family-ga aad u iibsanay yes marka dhadi
haddii aad samir order dalban karin Alibaba waxaa laga dalbadaa niman la waxaa jira mataqaan inspection team baa la dhahaa lacag baa la siiyaa waxa uu si randomly ah kunkii itemba gacanta bay gelinayaan productiga way fiirinayaan inspection teamka waa la kireystaa productiga intii aan lagu soo waxa laga yaabaa 2,000 item in aad dalbanaysid 2,000 item in qayb haleysan tahay laga yaabaa qayb ka jabin productiga mar haddii ugu soo darane dee khasaara ku jira ay ma celin kartid marka waxaa la sameeyaa inspection teamka Chinese weeye lacag baa la siiyaa si randomly ah boqolka item hal item bay soo qabanayaan marka shan jeer sameeyaan borortigii report bay kusoo gudbinaya borortigii uu saxsan yahay quality kulli wax jaban ama wax mataqaanaa broken ama item mataqaanaa defect kuma jiraan marka qaabkaas runtii waxa weeye waa la maraa kadib bororti fiican ku imaanayso dana waxa weeye processka walba maraysa qab maasha Allah ustaad hal anagoo sigu jirna Alibaba mu qofku inuu kasoo gato rabaa productiga kasoo iibiyo sidoo Alibaba iska duwan gali karay maadaama e-commerce-ga ay tahay hoyga dhan oo qofku wax ka iibiyo so muuqaalada ka duubtay ma jira meelo qofku kala xiriiri karaya ma jira aqoon dad waxa jira aan garaneyn matalan nako kale waan garaneynaa qaabka uu shaqeeyo Alibaba la iska duwan galinayo so qofka raba inuu hadda wuxuu rabaa inuu e-commerce bilaabo so wuxuu helay audience-giisii buu helay dadkii uu rabay productiga inuu soo saaro uu rabaa uu garanaya wuxuu rabay laakiin sidoo uu heli karaya inuu meeshan la xiriiro Alibaba Alibaba horta wax iskale waxa weeye nin la dhaho Jack Ma waa miyo mataqaana waa billionaire dadka waxa weeye dalka degan China marka dad baa waxay ku wareegsan Alibaba iyo AliExpress shirkadda horta family name-keeda waxa la dhahaa Alibaba Group baa la dhahaa ninkaas iska Alibaba Group marka afar bay u kala baxdaa labada ugu caansan oo international-ka waa laba loo kala dalka Chinese ka dhexda ka shaqeeya weey labana waa international marka anaga waxaan qorsheeyay labada international-ka Alibaba wuxuu noqonayaa asaga waa wholesaler business-ka e-commerce-ga loo qaybiyo saa ognahay waa B2B mid dhahan oo business to business sidoo kale waxa weeye business to C mid loo oo B2C oo business to consumer marna si jumla baa u dalbanaysa Alibaba marka si jumla kaliya baa dalban alaab hal item kama dalban kadib labana kama dalban kadib marka waxay leeyihiin minimum order bay leeyahay content ugu yartahay in shan labaad oo wax ku xiranta dhaqaalaha ama mataqaanaa waxaas marka Alibaba isla fahanno waa wholesaler saaxiibayaal si jumla baa wax looga dalbadaa maxaa ku sahay AliExpress waa business to consumer weeye waa Amazon oo kale Amazon waa B2C bay noqonaysaa AliExpress same weeye AliExpress tafaariiq ma ka dalban karaa mobile ma ka dalban karaa dhar ba ka sheeshay ba ka dalban karaa lagu keeni karaa laakiin Alibaba just website weeye website-ka sign up baa sameynaysa email-ka account-kaaga baa gelinaysaa dana waxa weeye supplier badan baa ku jiro dabcan video ilaa 5 video baa ka sameeya qaab supplier-ka fiican loo doorto supplier-rada sax ah iyo kuwa fake ah supplier waxa laga fiiriyaa inuu yahay mataqaanaa verification inuu haysto way dhahaan waxa weeye verifier inuu yahay waa kan ugu fiican supplier-ka oo verifier-ka every year wuxuu bixiyaa membership-ka Alibaba wuxuu bixiyaa $10,000 bixiyaa waa kan ugu fiican kaada wax ka iibsi qof fiiga ma waayo qofkan $10,000 sanad kasta bixiyaa oo cashuur iska bixiyaa marka kalamadna waxa la gold supplier weeye sanadkii wuxuu bixiyaa asna mataqaanaa $2,000 meelahaas asna wax baa laga iibsadaa marka waxa laga fiiriyaa membership haysto verifier baa gold labada dabcan waad ka iibsan kartaa mar baa laga yaabaa inaad golliga aad ka heshid oo productiga oo verifier heen waayo marka dhib ma lahan golliga waad ka iibsan kartaa waxa laga fiiriyaa inta sano oo ku jira Alibaba aniga waxaan dhamasal haduu 5 year plus haduu ka dukaankan oo active ka yahay Alibaba waa okay baa ka adeeg kada طبعا ayadoo practical video baa ka sameeyay YouTube geela bisha Alibaba hadaa ku qortid runtii waxa way helaysaa sidoo kale waxa way supplier-ka waa laga negotiate garayaa waa la baactama ama waa la gorgortama luqad international language international baa la isticmaalaa haddii aad laakiin iska dhigto qof maskiin hadda business-ka uu ku horeeyo kale waxaa laga lacag badan ka laakiin hadda international tahay language fiican aad kula hadashay negotiation miss aad la soo saartid asal wararkii aad ka dalbatay lacagta uu ka dhimaya uu ku fahmay inaad mataqaanaa waxa international kale waxa loo sheegay si aad supplier-ka u heshiisaan waxa daaniyo long customer baa ku noqonaya waxa weeye long term customer ina ku noqda potential customer ka ahay marka dhaqaale baa laga waayo bororka marka hadda keeno mataqaan every mataqaan 2 month ama 3 month gaar adaan kaas dal marka adiga laftiga waxa faa supplier ina la heshiisid oo WhatsApp-kiisa aad waxa weeye aad ka qaatid dadna waxa weeye aad isticmaasho mostly waxa fiican marka wax ka xabsanaysid platform-ka Alibaba dhexdiisa kula chat garay supplier qaar waxa isku day in WhatsApp-ka ku soo diraan ama application channel laga isticmaalo dadka Malaysia channel way yaqaan line baa dhaha line-ka waa waxa kale Chinese-ka waa sida WhatsApp kale Chinese-ka line bay aad u isticmaalaan waddanka WhatsApp ma isticmaalaanba marka waxa isku dayaan in meeshaas ay kugu mataqaanaa ay ku kaxayaan halka kula heshiiyaan waayo cadeeymaay laakiin Alibaba platform wuxuu leeyahay chatina oo ku dhex jiro asaga kula chat garay waayo haddii lacagta laga dhaco ama problem uu ku yimaado Alibaba waa soo screenshot baa ka soo qaadaysa customer service-ka ama support team-ka
baad u dirtaa hal supplier-ka waxaas buu igu sameeyey baga heshiiskii iyo contract halkaas ku jira payment-igana WhatsApp-ka iyo kugu soo dirin payment-iga wax ku dhex samaysaa platform dhexdiisa oo link halka ugu diray halka ku bay garee marka wax kasta la tibaan qofka haddii lagu dhaco ama lagu gaado kale Alibaba full refund buu ku siinayaa ustaad Alibaba marka Soomaaliya oo kale ma geyn karaya Alibaba Soomaaliya uu geeyaa basically Soomaaliya uu geeyaa laakiin delivery-ga waa laba saacuna delivery-ga laba loo qabiyaa sida midna mataqaan waa sea freight midna waa air freight sea freight waxa weeye waa marka dibna saaray mostel wuxuu qaataa ugu waraan 45 bari buu qaataa Alibaba waddankiina wuu geeyaa laakiin sablaayada qaar baan aqoon waddanka qaar baa Djibouti ku dhahaya qaar boorasha laga inuu ku dhanin Muqdisho kaga jiro laakiin mostel Djibouti laazim way geeyaan Djibouti waa number 1 Djibouti uu ku geeyaa Djibouti adaa ka soo qaadanaya alaabtada ka soo dogsanaya kan labaad waxa la air freight baa la dhahaa asaga Muqdisho iyo Hargeysa iyo Garowe baa la geyn karaa Ismaaciil iyo Baydhabo asaga air freight ku qaalisan yahay waxa la yiraahdaa air freight in $300 kaga baxdo barorti $1,000 ama $200 $300 delivery noqon marka diyaaradda DHL lagu saari laakiin DHL asaga saa ugu week buu kugu imaanaysaa laakiin marka doonta ama marka uu soo saaro uu ka jalayaa $100 in laga qaado barortiga halkan $300 laga qaaday laakiin 45 days waa sugaysaa oo doon waa taqaanaa tacabaar baa soo socota wadamo kale bas laakiin trackna baa lagu siinayaa waa shay marka calaamad yes waddanka waa geyn kartaa uun tagaa sablaayada qaar baa geeyo aad iyo aad maasha Allah ustaad si qurux badan baad u samaysay I think e-commerce qofkii inuu bilaabo rabo uu arkaya fursad say uga bannaan tahay qaabka loo shaqeynayo soo daawada haddaad muuqaalada aad daawan weli ustaad ka sameeyay 5 muuqaal ee saad Alibaba uga adeegan karaysaan waana meesha ugu weyn weeyaan waxaan rabay inaad meel ku sii taabto ahayd halka chatting lagu sameeyo dadku inta badan waxay sameeyaan wadada fudud bilo iska loogu talagelin aan marno dib ay ku keenaysa adigoo kale whatever ganacsiga doonayso aad ku jirto oo bilaabayso oo sameynayso mar walba waxaad isku daydaa inaad marto wadada loogu talagalay sababtoo way fududaanaysaa hadhow tole in xal la keeno kale intaas leedahay maadaama inaka Yurub oo kale qofka hadduu joogo uu lacag badan sameynayo isla markaas oo kale cashuurta nuga cabsoonay laga yaabo businesskaagu israngaraynaayo adiga oonan joogin meeshii macnaha haddii aad xanuunsan tahay haddii aad ka maqan tahay midda loo leeyana waa taas baa dhahday ustaad waxa weeyaan waa sababta oo kale aad leedahay meelo badan lacag ka soo galayso tusaale ahaan oo kale inaad haddii aad waqtigaa kale ku xisaabsantahay ama xanuunsan tahay ama ubadkaa ka samayso tan wuxuu istaagaya laakiin haddii aad meel ka samaynayso internetka lacag samaynayso onlineka aad koorsiyo ku samaynayso ama aad maxay ahayd dadka service la samaynayso article la qaybtamayso ganacsi hoose ood leedahay aad la shaqaynayso dad la jiro meel aad maal gashatay so haddii aad noqonayso qof xorriyad leh waa inaad adu ka noqotaa lacagta kusoo galaysa waa inaad ka xorriyad ka ahaataa adigoo joogin iyo adoo maqanba waa inaad maal samayn karaysaa soo siduu qofku taa ku samayn karaya ustaad waa maxay waddooyinka ugu fudud uu ku bilaabi karayo qofku inuu noqdo qof xorriyada haddii uu joogiyo haddii kaleba uu samayn karayo maal soo gali karayo ama wixii adiga kuu sahlay iyo qaabkaad u bilowday qaab ku ahaa runtii waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan horta marka hore qofka raba inuu independent noqdo number waxa weeye qofka horta inuu waxa weeye asaga inuu isxilo in adiga horta aad istaqaanid wixii adiga kaa go'do aad underline ku samaysid hoose aad ka xariiqdid I have to accomplish this and that kana dhigi kartid underline ku samaysid goalkaaga waa inaad xaqiijin kartid marka adiga is heshay adaniyo waxyaala caadooyin badan baa lahayd sidoo kale fari ku diri baa lahayd waxaa laga waqti badan in balwad badan kaga bashido 4 saac maalinka balwad aad u fasan jirtay ciyaar iyo baarti iyo xaflada baad runtii baa aad jirtay marka timekaasi waa inaad soo jartid marka timeka soo jirtid waqti baa helaysaa waqtigaas aad marka baad ka faa'iideysanaysaa shaqa aad marka timaadid online baad uga faa'iideysanaysaa waxbarasho aad rabtid online ka marka number waxa laga horta inaad skills aad baratid waa inaad xirfadihii aad baratid waa inaad naftaada marka aad maal gelisid input badan waa in adigu aad waxa weeye aad runtii aad samaysid koorsooyin qaada skill qaada businesska aad leedahay bilow marka u baro waxa weeye loo bilow saddex koorta fiican qaado fahan marka koorsada xigmadii iyo mataqaanaa license aad baratid kadib waxa laga yaabaa businesska aad aastid waxa wixii aad isku day samaysid haddii aad isku day sameeyna waxa weeye runtii waxa weeye wax ku hirgalaya malahan dhanka timingka time management waa muhiim odolka hore buu ku jiray waa ka tegay book waxaa jira la dhaho waxa weeye how to make time sidee waqti loo sameeyaa asoo mataqaanaa maqalana Spotify iyo mataqaanaa Audible Amazon waad ka iibsan kartaa asoo qoraalana waad akhrisan kartaa macnaha qof walba 24 hour baa haysta qofna waqtiga baa ku yar qofna waqtiga baa ka batay kama faa'iideysto dad qaar waxa dhahan 24 hour kiyaa kaaga badiyo dad qaar waxa dhahan iyo laba qof ka dhigo si 24 hour aan uga faa'iideysan dad anagna la mid way annagana waxa laga yaabaa dad kaleba in waxa weeye Soomaaliyeena waqtiga 24 uu ugu badan yahayba maanta la iska hurdiis iska fadhi ku durfay marka waqtiga time managementiga waa qodob runtii muhiim ah waqtigiisa u baahan laftigiisa in qana laga hadlo oo sharaxaad badan runtii laga bixiyo marka isku dayga baan ku wadayay waa inaad isku day samayso waa inaad ku dhac yeelatid waa inaad businesska aad bilowdo waa in aad ka baqin dadka
aniga waxaan aaminsan businesska waxaa laga bilaabay existing followerkaaga ka bilow instagramkaaga 200 ma ku follow garaysaa 1000 ma ku faraysaa ka bilow businesskii ugu horreeyay aan bilaabay waxa e-commerce wuxuu ahaa inaan waxa sameeyo physical waxa ahaa sariida bidaarta inaan kale mar badan waa kuu sheegay follower kale ma raadin customer kale ma raadin existing followerkayga marka ay follow garanayay 2000 bay ahaayeen instagram xilligaas 2020 iyo isla ayagii baan ka dhex ciibay ayagii baa market u sameeyay ayagii baa baroortiga iga gatay marka excuus malahan inaad follower badan aad tidhahdeen aniga okay inuu awdiis badan ma hayo mataqaana dad badan ma follow garaya saami ma ahan inta aad joogto ka bilow step by step wuu koraya wuuna ku hirgalayaa business plan dabcan waa u baahan tahay business goal waa inaad samaysid timeline waa inaad samaysid mataqaana sidoo kale waxa weeye hadafku waa inaad samaysid iyo plan ustaad weldon si wanaagsan baa usnay sababtoo wax horta ugu horeysa intii aad odhan lahayd waa dhahday waa inuu qofku haysto naftiisa waa inuu helo waa in adigu horta kasoo adkaato naftaada markaad waqti soo samaysato soo dhamaysato waqtigaagii kabacdi aad waqti aad hesho baad bilaabi karaysaa ganacsi kale tusaale ahaan haddii wax baranayso haddaad shaqaynayso okay ladisii kii waqti baad ku bixisaa fadhiiso waxaad isweydiisaa bal 24 saacadood waa maxay waxa aad ku bixiso iyo waxay wax kaa soo galaan so meelaha ay kaa soo galayaan income ama lacag kaa soo galayso okay faa'iido ba leedahay okay halka ku dhaaf waa maxay waxyaalo aad waqti ku lumiso malaha telefoonka isticmaasho social media-ga saa sheegtay asxaabtaada oo kale ama fadhi ku diri baa tahay so haddii dhammaantoodna wada joojin baad doonto soo qaad inaad 1 saaca 2 saaca ka samayso 2 saaca seed u samayn karaysaa oo isku dhisi karaysaa adu markaad naftaada soo dhisto baad ka bacdi haddana samayn karaysaa okay ganacsiga bilaabay e-commerce ha noqdo ku doonaya ha noqdo ka bacdi waxay noqonaysaa inay ku fudaato welina inaka Soomaali ahaan oo kale maanta wax ka soo bilowdo uu shaqaynaya saan hore u sheegnay sidoo kalena waxaad haysataa dad tijaabiyey soo ku faadhacay maanta af Soomaali kugu samaynay waxaad dad course inaad e-commerce samayso waad helaysaa crypto-da bilowdo rabto waad helaysaa trading forex haddaad samayso waad helaysaa akhris haddaad inaad barta rabto waad helaysaa koorsiya akhris loo samayn karayo iyo qaabka la isku bedilaa waxaana kuu talin haddii aad akhrido bogga atomic habit oo kale iyo how to make time oo kale is very good 4 hours weeks bog isaguna aad buu wanaagsan yahay waa buugaagtaad ku bilaabi karayso wax akhriskoo kale noloshaadana bedeli karaysa soo ustaad waxa weeyaan maxaad odhan lahayd qofku wax lama bog ama 3 bog oo isleedahay haddii qofku waxaan sameeyo noloshiisa way bedeli karayaan ama audio bog ha noqdaan ama bog caadi ha noqdaan iyo sidoo kale ganacsiga ama e-commerce ha noqdo ama physical product ha noqdo ustaad ma runtii buugani waxaa la mataqaanaa favorite-kayga aan aad waxa weeye aan waxisay wax badan aan ka faa'iiday inkastoo dadka ay kala topic waxa weeye ay yihiin qof walba uu jecel yahay inuu wax akhriyo ma habitska iyo gudaha baa jeceshahay ma financial freedom iyo saving iyo investment arrimahaas baa aad u xasayo mataqaanaa economiga ma waxa weeyaan science-ka iyo siyaasadda iyo politics iyo history geography عشان انت سوق قفبه waxa jecel laakiin waxa kusoo koobaya hadii aad e-commerce bilowdeed businessada e-commerce-ga entrepreneur iyo waxa aad xiisaynaysid waa muhiim ah jirto dhowr qaabada ko buuga ashita waxa weeye atomic habits waa muhiim oo anaga waliba aad buu anfacaya Soomaaliyeena waayo waqtigeena kama faa'iidsano fadhi ku diri caadeen xun baa leenahay marka buuga waxa ku baraya sida caado fiican aad u samaysanay fadhi ku diri baalada waa caado xun qaabka u jirnay balad baalada waa caado qaabka u jirnay si kala waqti u dhibsa maana yacni kala ba waqti baad ku dhimisaa waqti ka faa'iideyso caado marka buuga atomic habits-ka hal akhriyo ama dhageyso waa caado fiican guud habits qaabka loo sameeyo buuga ilaa afar sano mara wax badan runtii waa ka hadlay buugga hadda aan sheegay waa muhiim waxa weeye la dhaho mataqaanaa in how to make time asna waa aad weyn oo bacaya waa time management iyo waqtiga saar 24 hour ka aad uga faa'iideysanaysaa mataqaanaa priority mataqaanaa goolashaada iyo businesskaaga iyo daily mataqaanaa taskaaga aad uga faa'iideysanaysaa runtii aad muhiim yahay buug kala jiro asna waxa weeye the science of internship oo runtii asna aad muhiim oo wuxuu ku baraya mataqaanaa in internship-ka waxyaalo qofka internship looga baahan yahay toban markaas maxaa laga baahan yahay businesska maxaa looga baahan yahay marketing haddii noqon mindset-ka qaabka aad u fikiraysid waxa aad qabanaysid gym miya aadaysaa ma orod baa galaysaa ma safaraa galaysaa hablabiskaaga xataa inaa waxa weeye runtii aad iska saxdid businesska qaabka waxa weeye aad businessada kale mataqaanaa aad uga faa'iidaysid xataa si fiican waxa uga hadlaa waxaa jira product iyo qaabka waxa weeye aad mataqaanaa aad uga qaadanay xataa dadka familiyada leh oo qoysaska leh sida mataqaanaa family leh oo hooyo ama aabba ah aad same time businesskaaga iyo family-ka aad isku wadi kale dad waxay aaminsan yihiin dad waxay inay ku dhahaan ninay nin weyn baa ahay carruur baa leeyahay inuu hadda ilmahaas baa karsanaya buu leeyahay asal waxaa laga yaabaa waa 30 jir ama waxaa laga yaabaa 20 jir inuu asaga qofkii asaga ignore garayo oo dunyada ilmo badan baa ilmahan baan karsanaya ama hooyo ahayo anima taqaana single mother waxaan sameynaya buu runtii aad uga taxadaraya oo waxa loo tusaya dad baa loo tusaya hooyooyin aabooyin oo family weyn big family oo da ah same time business xoogid marka
buugtaas iyo kuwo kale aan isleeyahay mataqaan insha allah gadaalna wada sheegi doonaa. allaha kaa jasaisiiyo waxa weeyaan waa wax aad u muhiimana weeyaan haddii aad naftaada waa inaad marka koobaad positionka koobaad dhigtaa waxa kaloo dhan way imanaya haddii aad naftaada ka adkaato naftaada qanciso naftaada la sheekaysto naftaada tababarto way fududaanaysaa in aad dadka kalena qancin karayso inaad dadka kale jacaysiin karayso laakiin waa inaad number one ay ku taagnaato shakhsiyadaada ka bacdi markaas ubadkaaga ama asxaabtaada ama walaalaha ama hooyada ama qoyskaaga way imanaya sababto adigoo naftaadiiba meel dhigin ka bacdi naf kale seed u samayn karaysa marka koowaad naftaada qiimihiga sii naftaada koowaad daryeel tijaabi tababar kadibna waxaad samaysaa inaad dadka kale kusoo celiso da'duna waxa weeyaan kaliya waa number weyn haddii aad maanta 20 jir tahay waxa weeyaan waqtiga ugu wanaagsanaa bilaabi karayso waa haddaad 60 jir tahay oo waqtiga aad bilaabi karayso ma waqtina kama dhicin haddiiba aad nooshahay waxa weeyaan waa calaamad in aad wax samayn karayso inaad bilaabi karayso maanta waqti waxaan joognaa wax kasta oo tiraado waan bilaabaya aad u baahan tahay steebyada ustaadku noo soo sharaxay inaad marto inaad adigu dhisto inaad adigu samayso ustaad maxaad oran lahayd 5 daqiiqo ugu dambaysa aad kula talin lahayd qofka maanta inuu rabo isbedel sameeyo noloshiisa waxay doonaysaa ha noqdo inuu galuu rabaa dadkan isbedelka iyo hal abuurka ganacsiga inuu sameeyo ama inuu noloshiisa nolol qurux badan uu sameeyo ha noqoto physique ha noqoto dhaqaale ha noqoto diin ha noqoto cilmi sideed maxaad kula talin lahayd qofka dhalinyar maanta oo raba inuu isbedelo ama nin family oo raba inuu nolol cusub iyo wado cusub inuu bilaabo rabo runtii waxaa dhihi lahaa waxa weeye sana cusub hadda bilaabanayo 2023 dad badan hadday daawanayaan laga yaaba ama ay dhegeysanayaan inay ahdaaf leeyihiin goolo leeyihiin oo inay rabaan inay isbedelaan real change sameeyaan trend sii wareegaan waxa weeye asxaab cusub samaystaan dad mataqaan la jaadkooda oo isku maansada isku mataqaana fikra inay la saaxiibaan marka waxaan dhihi lahaa waxa weeye isku day waxa weeye inaad isbedel samaysid isku day waxa weeye inaad mataqaana buug badan aad akhrisid maal gasho naftaada buug akhriso buug dhegeyso waxaas dad expert ah oo khabiira ah nolosha kusoo guulaysto ganacsiga weyn fikradoodii weeye maanta information waxa ugu muhiimsan qof la shaqeeyo marka buug hala akhristo skills ya laga caajisin koorsooyin baro xirfado baro waxa weeye business as sidoo kale markaad akhris bilowdid aad koorsooyin aad gadatid at the same time waxa ku banaan kaliya waxa inaad business bilowdid waayo fikradii waa haysaa maansada ahaan waxa weeye information kugu filan waa haysaa ganacsiga waa taqaana marketka qabka loola taqaana face gareeyo marka intaas dadaalka hala sameeyo badida kale dadka asxaabta oo isku maansada la saaxiib dadka waxay dhahaan waxa weeye 5 qof baa mid baa wuxuu yiraahdaa xigmada waxa leedahay tell me your friends qofka tahay baa ku sheegay asxaabtaada ii sheeg qofka tahay baa ku sheegay dabcan dad iska daalan oo mataqaana iska wararsan hadii aad asxaab la tahay shan qof ah adigana qofka la had ma tahay adoona xataa aad isku sheegin bay dhahan waa ku sheegi karnaa waxa tahay hadii shan qof entrepreneur oo toban hadii aad la tahayna waa ku sheegi karnaa qof mataqaana maasidkaaga oo qof hoor xataa hadii aad bis markaa lahayn hadaf loo meel u socdo marka asxaabta hala bedelo qof kula jaada kula fikira adduunka meesha u socdo kula jaan qaadi karo waqtigana yaqaana faa'iidadiisa la saaxiibo business ay leeyihiin marba kala iskaas garay meesha xan iyo fadhi ku diri iyo wax aan bis iyo markaa siyaasad aad shaqada ahayn aad ku jaawleed marka intaas aan leeyahay ustaad allaha ku sharfo saad nagula wadaagtay kolley dadkii rabaa in xiiseynaya inay bartaan e-commerce ama ganacsi loo bilaabo ama market strategy loo bilaabo ama raba inuu entrepreneurship la galo ustaadka kanaalkiisu waa ka ugu wanaagsan ee ka baran karayso personal development ganacsiyo cusub waxay doonaysaa noqoto oo dadka uu rabo inuu mar walba bulshada kusoo kordhiyo halka ay u socoto iyo fursadaas aad uga faa'iideysan karaysaa noloshiisana ay bedishay sidoo kalena uu aad u taageero waxa weeyaan dadka tirada yar leh taageera multiple income qofku sameeyo inay meelo badan kasoo gasho una u sameynaya dadkii fursado badan oo dadkii wadankii joogay si uga faa'iideysan lahaayeen usoo gudbinay ustaad allaha kaa jisaysiiyo inaad mar walbaaba community garab taagan tahay bulshada garab taagan tahay aad diyaar u tahay inaad kusoo kordhiso xog ood leedahay halkan anigu maraya halkan ku banaan waxaan u sameynay barnaamijkeena wax kala ma shaxda guusha dadka san oo kale kamira dhaliyay ama suuqan ka shaqeynaya ama fursadahan ka sameysanaya inay xogta kula soo gudbiyaan xog yaraan iyo information la'aan waxa weeyaan waa wax sababaha keena dib ku dhacda laakiin haddaad xog hayso informationka ugu dambeeyaad haysato waxa weeyaan casriga caalamka la jaan qaadno halkana waxa weeyaan hadafkeenu inaan dadka bulshadeena kusoo kordhino kolba halka uu update socdo sida informationkii saxda u heli lahaayeen waqtigii saxda u heli lahaayeen iyo caalamka saan la jaan qaadi lahayn aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiisa kulankan iyo kulanka dambe insha allah baynu isku arki doonaa aad baan